argagixisadii shabaab ee duulaanka soo qaaday ayaa laga fogeeyey difaacyadii ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay ku lahaayeen nawaaxiga teedaan iyo aagga waabweyn oo hiiraan ka tirsan 24 saac ee duqeymo isxixiga iyo howlgallo lugta ah ay ka socdeen aagaga ku xeeran deegaanadaas. shabaab ayaa maleeshiyaad soo geliyey nawaaxiga aagagan waxaana ujeedkoodu uu ahaa inay gaaraan teedaan oo ah fariisin ay degan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. duqeymo isxixigay oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay nawaaxiga deegaanadan ee hoostaga Maxaas ayaa la sheegay in shabaab ay ku qasbeen iyo howlgal dhanka lugta ah oo isla socda in kooxdaasi ay dib ugu gurtaan difaacyadan, kuwaas oo la sheegay inay isugu tageen iyaga oo dhaawacyo iyo meydad wata deegaanka goobo iyo degmada Maxaas oo hiiraan ka wada tirsan. saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegtay in dab la gaarsiiyey maleeshiyaadkii isku dayay inay carqaladeeyaan difaacyada ciidanka sida ay sheegeen, waxayna tilmaameen in dhaawacyo fara badan ay geeyeen goobo iyo Maxaas halkan oo shabaab ay ka soo abaabuleen weeraro ay doonayeen inay ku qaadaan teedaan oo ah mid ka mid ah difaacyada ciidanka xoogga dalka uu ku leeyahay gobolka Hiiraan. taliyaha guutada 29aad ee qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Cabdullaahi Cali Dhimbil oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in jab weyn la gaarsiiyey maleeshiyaadkii duulaanka soo qaaday, waxaana taliyaha uu sheegay in kooxda ay khasaaro badan ay kala kulmeen isku daygoodii ahaa inay weeraraan difaacyada ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga. duqeymo soo bilowday gilinkii dambe ee shalay socday xalay saaka ilaa maantadan ayaa shabaab ka qasbay iyo howlgalka lugta ah oo ciidanka isgarabsanaya ee xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay wadeen in kooxda ay dib ugu gurato fariisimahan ee shalay soo gaareen.